أحبتي في الله إمام مسلم وحوصو صاري إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره وسلا درادت أي كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده سيدو كله نبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله أحاديث صدح ذين شيء لبض الدنب البخاري باسو صاري كان هورنا مسلم نبيغو طبعا كان أيامود الدنب ددال وسن نلشيس انت كلا ددالين بو ددالي تشري وحديث كهوري مسلم سلا دراد نبيغو اعتكافي تشري إلى إلهي كأوف صدود دبادنا حاسس كيسيبا اعتكافي قداشي nabigu sala allahu calayhi wasalam tobanka dambe markuu soo galo guntiguu dhiisha ka dhigan jiray waana kinaaya waa sarbeeb can ictizaali nnisaa haweenka in laga fogaado gogosha iyo waxyaabihii horay kuugu bannaanaa qofka inuu ka fogaado weeye si uu habeenkaasi u helo habeenkaas uusan oga mashquulin habeenkaas uusan oga seexanin habeenkaasuu ku noolayn jiray nabiga sala allahu calayhi wasalam taaco kala duwan qiyaam iyo quraan akhris iyo duco iyo tahajjud iyo dacwo iyo qaraabo xiriirin iyo waajibaadka u yaallo oo uu gutuu nabigu sala allahu calayhi wasallam habeenkaa ku noolayn jiray dadkiisana wuu toosin jiray nabiga sala allahu calayhi wasallam aaway axbaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasallam aaway dadkii hadday nabiga la noolaan lahaayeen sida asxaabtii nabiga xakawda iyo ruuxda u huri lahaa difaaca nabiga iyo raacidda nabiga naf iyo nafiis iyo wax kastoo agtooda qaali ka ah dadkii u huri lahaa aaway hadalka nabiga sala allahu calayhi wasallam hayna dhaqaajiyo walaalayaal aynu dadaallo nabiga sala allahu calayhi wasallam dadka uu la hadlayaad adigu ku jirtaa oon anigu ku jiraa ee aynu baraarugno waxaa iga dardaarana habeen walba inaan qiyaam la nimaadno habeen walba inaan wax sadaqaysanno habeen walba inaan waalidkeen baari u noqonno